maanta oo ay ku beegan tahay maalinta loo aasteeyay xuska dhibaatada ay leedahay caadada gudniinka ah ayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland markii ugu horeysay waxa ay soo saartay qaraar ay gudniinka laba nooc u kala qaaday go'aankaasi waxaa lagu mamnuucay adeegsiga gudniinka fircooniga halka ay ku sheegeen inay bannaan tahay gudniinka sunniga la yiraahdo haddaba warbixintan ayaa wariyaha BBC ee magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad waxa uu ku eegayaa heerka uu gaarsiisan yahay ku dhaqanka caadadan iyo bulshadu waxa ay ka fahamsan yihiin nuura cilmi faarax shaqadeedu waa kuwa ugu faca weyn dhaqanka Soomaalida waana mid badiba si gaar ah u taabta dumarka Soomaaliyeed waxay 34 sanadood ay gudaysay hablaha waa dhaqan la rabo in la tirtiro wali si hawshii waa caadi qalabkiina waa u diyaar waxa la leeyahay waxba la joojiyay wax isbedeli ma jirto dadku waa si hore oo lagu shaqeeyaa waxay maalinkan maanta in sida marana ugu shaqeysana waxaan ku daynaa maba aragno waa wax aan reerada ku afayno Soomaad fahmin hablaha Soomaalida ee da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 49 boqolkiiba 98 waa la guday taasi waxay ka dhigan tahay in hablahan yaryar ee fasalka ku jira 10kiiba 8 la gudi doono waana qaliin aan dhakhtar lahayn si ku oranaysa ii tolla oo iga shaqeena sama loo yara dhilay labada geesoodna waa la dhilayaa deedna irbad baad ku qabanaysaa bes dawadana waanu ku shubaynaa irbadan haatan waanu ku tayo dunta markaas awgeynaa waanu ku xiraynaa hadana sida waanu ku xiraynaa dhag Iida Maxamed Cabdi oo dhakhtarada ayaa ii sheegtay saameynta caafimaad ee gudniinku uu ku yeesho gabadha nolosheeda oo idil waxay keeni kartaa dhibteedu way dhib fara badan ay dumarku ku keeni kartaa markay gabar tahay iyo markay inaan tahay inaanta markay tahay waxay ku keeni kartaa in caadadu ku istaagto inay kaadadu ku istaagto waxyaabo fara badan ay ka dhaxli karaan waa waxaan wanaagsaneyn halkani waa mid kamid ah jaamacadaha Hargeysa waxaan u yimiisaan ardayda wax ugu weydiiyo maadaama ay yihiin waalidkii berri toole iyo madaxdii berriba waxay ka aaminsan yihiin gudniinka fircooniga su'aasha koobaad waxa weeye intiina yaa raba inuu ubadkiisa ama gabdhihiisa inuu ku sameeyo FGM gacanta ha taagan ciidima muuqato waa tahay su'aasha labaad waxa weeye yaa raba in aanu gabdhihiisa mustaqbalka waxay ii sheegeen gabdhaha jaamacadan wax ka bartaa in markay waalid ay noqdaan aanay gabdhahooda gudi doonin waxay ubadkayga maan gudeen sababtoo ah fircoonigu dhibaato badan buu leeyahay يعني وبنادم تنمو يعني رأي ديسك قفكة مالك قد عيا أما مستقبل كده مالك قد عيا فإن شاء الله وحيقر شيء سن إني أنا كوسا من قدين كفرعوني جاء waxa muuqata sansaan isbedel laakiin wacyigelinta la sameeyaa ma aha mid dadka oo dhami ay u soo jeedaan waana isbedel waqti qaadan doona Sadiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa